daasad baan ku fariisan jirnay part-time ka fadhiyo daasadu noo li jirtay daasadu isku ma khaldami jirnay kastaba daasad buu lahaa inama soo cabaan waxayna wax baan ku dhigan jirnay halkan imika aan taaganahay 29kii kilaaska halka ka soo jeeda ayuu magaranaysaa ku jiray annana 29kii macallimiintii meesha joogtay waan wahayn anigu waxaan ahaa macallinkii carabiga dhigayay isna kilaasku ku jiray xildhibaanku oo kilaaskaas uu ahaa marka maanta taariikhda qaaliga ah ayaa xildhibaanku inoogu soo booqday kilaaskayguna kaasuu ahaa 30 sano ka soo wareegtay waxyaabaha cajiibka waxa ka mid ah macallinkii carabiga iyo diinta noo dhigay macallin maxamuud oo caduur ku magac dheer in maanta iskuulkii carabiga iyo diinta uu noogu dhigayay ee ardaygan ka ahaa aan ku soo booqdaan oo xildhibaan ah isaguna maamulihii iskuulkaya waa arrin mucjisa inuu ilaahay isu kaaya simay oo caafimaad iyo cimri aanu ku wada nool nahay macalinkeygii waa runtii mucjisa imikana waxba ma kala weynin arday ahaan waxaan doonayaa in idinku yimid inay idinka diwaanaadaan ardaydaad wax la dhiganaysaan dadka intiisa kale ardaygu isagaa kula walaalaa isagaa kula xigaalaa isagaa kula xigtaa ciddaad wax ku qiimaynaysaa waa ardayga ama ardayda isku fasalka tiin muddo kadib baad isku xiisi doontaan bartan baad soo booqan doontaan macallimiintana inaydin mudnaan gaara siisaan ood xasuusnaataan ood qiimaysaan ood u dheganugulaataan haddaad ardaydii tihiin waxaa idinku waajibaa inaad ardaynimadiinna marka la qiimeynayo aad ilaashataan midnimadiinna inaad noqotaan macallimiintan dhexli lahaa inaad isku diyaarisaan madaxdii dalka inaad isku diyaarisaan mas-uuliyiintii ummadda hogaamin lahayd inaad isku diyaarisaan madaxweynihii dalka inuu idinku dhex jiro ilaahay waxaan ka rajaynayaa iskuulkan inay ka soo baxaan arday dalka iyo dadkaba hagta oo hannaan hogaamineedoo wanaagsan yeelata maanta waxaad haysataan nabadgelyo waxaa laga yaabaa annagu markii aanu wax dhiganaynay markaanu iskuulka ka baxnaynay rasaastu meelahan ka dhacaysa laakiin maanta mikrafoon baa laydinkula hadlayaa annagu markayga mikrafoon maanu haysan nabadgelyadu sidaan may ahayn waxaynu ku dardaarmaynaa inaad nabadgelyada ilaashataan shucuurteeda ma cabiri karaya xusuusta ayaa cajiiba markaa iskuulkaygii inaan saaka dhex joogo anigoo xildhibaana ardaygan ka ahaa macalinkaygina joogo maamulo yahay waa arrin runtii in buugaag laga qoraayta shakhsiyan iskuulka wuxuu u baahan yahay dayactir fara badan hadday marmar tahay hadday tahay rinjiga hadday tahay albaabka laga soo gelayo intaasoo dhanba waxaan ugu baaqayaa ardaydii iskuulkan ka baxday inay macalinka toos uga soo xidhiidhaan iyo maamulka in bilicda iyo qurxinta iskuulka qayb aynu ka wada noqonno in anugu bilaabi doono wixii igu soo hagaaga arday kasta oo iskuulkan ka baxday axmed gurina waxaan ugu baaqayaa inay dib iskuulka ugu soo noqoto dayactir aynu ku samayno aynu qurxinno ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa baaqa inay ardaydu ajiibi doonaan cidda la soo xidhiidhi doonaana maamule maxamuud caduur ay noqoto iyo macallimiinta meesha joogta
qaadhaanka barbilowga marka la bilaabo ee ardaydu dib isugu soo noqotana lambar 1 baan ka noqon doonaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkaa daabuurkaad fadhiisanaysaan baynu ka bilaabi doonaa ee garoonka ahayd birihii berigaa ku yaallay ilaa iminkana kuwa ku yaalla marka waynu qurxin doonaa insha allahu waxaan ku faraxsanahay in maanta uu horteeda taagan yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Barkad Jaamac Batuun waxaan ku faraxsanahay in iskuulkayga igu yimaado anigoo ardayda dhigta fasalkii ugu dambeeyay waxaan ku faraxsanahay inaan ka helo dhiirigelin aad u ballaaran waxaan ku faraxsanahay maanta inaan arko xildhibaan ka mid ah xildhibaanada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland manaan filaynin manaan lahayn uu imanaya hamigaygii waxaa ku sii kordhay waxay dareenkayga waxay dheer maanta farxadeed u ballaaran anigoo ku haminayna iskuulkayga wax ka bedelo inaan helay xildhibaan aad iyo aad u qiimeeyo sharaf u leh maalinka ugu horeysay noo timaado ma noqon doonto maalinka ugu dambeysay waxaad noqon doontaa xildhibaan haddii maanta aan ka damaysana aanu xasuusan doono oo odhan doono maalinka iskuulkayga noogu yimaaday sidaad noo soo booqatay adigana malaagta ku soo booqato waan ku mahadsantahay sida quruxda badan ee aad noo soo booqatay kelmadaha aad nagu tirin aanu ka faa'iidnay kelmada dhaxal gala waxaan ku faraxsanahay maanta adiga xildhibaan aniguna ama xildhibaan ama inkastoo jecelayna ganacsato noqdo ama ganacsata in halkaas soo istaaga ardayda iga dambaysa aan halkaa waanu uga jeediyo ardayda galaaska standardka dugsiga Axmed Guray imanka fasalkan waa 8 wuxuu aan jiray uulo waxaanu tuugiyo iyo uuladii baanu ku dhiganaynay kambuha daasad baanu ku fariisan jirnay part-time kan fadhiyo daasadu noo li jirtay daasadu isku ma khaldami jirnay kastaba daasad buu lahaa inama soo cabaanu hayno waxbaan ku dhigan jirnay samuuradaasina sabad bay ahayd iminka maxay tahay loo xaalay ka dhigay macallinkii wixii dhigayna waa kan markuu loo soo galo loo sabin jiray macalimiinta loogu jeclaa buu kamid ahaa macallin eedab wanaagsan buu ahaa sida imka buu degan yahay markaa 30 sano kadib macallinkaygii oo maamulaha oo dugsigii aan waxbarashada ku bilaabay 29kii iyo anigoo xildhibaanay inaanu bartan imanno waa taariikh weyn waxaan rajeynayaa idinkuna 30 sano kadib idinkoo madaxa inaad macallimiinta ku soo noqon doontaan